kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandor Media oo ah mid sugi barnaamij xiiso leh war iyo bixino fadlan walaal macaan markii ku horeysay channelkana soo booqato subscribe saaro kambalekana fuursi kugu soo dhaca waxay laan soo gelin markasta hadda hornool joogtana muuqaalkan like saar una si sheekada asxaabtaada fanaanka caanka ah ee Guuled Simba ayaa ka hadlay heesta la hadalhayay saacadii ugu dambeysay social media-na qabsatay waxa uuna si carri leh uga hadlay arrintaas intaan u gudagal barnaamijkeena fadlan walaal subscribe saar kambalekana fuursi kugu soo dhaca waxay laan soo gelin markasta takalana waxaan maqlay Soomaalidu like kuma saarto ma garanaysaa fiidiyogan like saara waxaan rabaa inaad fiidiyogan like saartiin inay lacag lagama qaadaye like iska saar ha adaan kula hadlaya adiga ninkay daawanaya inaan waalad muusa laakiin ma waali anigu dadka barnaamijkeena fanaanka caanka ah ee Guuled Simba ayaa ka hadlay heestii la wadwaday saacadii ugu dambeysay social media aadna u qabsatay dadyo badan oo caan ah kula raay duwanaadeen balse la filayay in Guuled Simba uu ka hadlo ayaa waxa uu barta ku leeyahay Facebook soo dhigay qoraal uu ku cadeynay inuu ku xun yahay heestan ay soo qaadeen waayaha cusub waxa uuna sheegay in hees jawaab ah uu soo qaadi doono isbuuca soo socda ama dhawaanba sida la filayo waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay fankuna uusan ahayn in siyaasad lagu dhex daro balse uu yahay fanku hanuuniye laguna madadaaliyo dhalinyarta iyo dadka Soomaaliyeed balse aysan ahayn in siyaasad la galo ama lacag lagu qaato fanka fanaanka Guuled Simba inta badan loogama baran hadallada noocan ah ama in uu jawaabo dad kale ama heesa jawaab ah uu soo qaado balse waxa uu ahaa fanaan talent leh oo heesaha uu soo qaado isbuuciiba 1 milyan ay ku gaaraan waxa uuna heesaa iskoor badan dhinaca YouTube-ka balse arrintan ayaa ka xanaajisay oo muran badan gelisay dadyo badan oo caan ah kuna dhiiradeen in ay jawaab heesa ka soo sameeyaan sida Farxi Kabyaro oo soo wada hees jawaab ah sidoo kale Ilka Case iyo Daacadal Nuurshe oo sheegay in ay heesa jawaab ah u soo qaadi doonaan balse markan ay marayso Guuled Simba waxa uu si cad u sheegay inuu ka soo horjeedo kooxda waayaha cusub heestan ay soo qaadeen kooxda waayaha cusub ee lagu dacaayadeynay ama lagu soo horjeedo dowladda Soomaaliya ayaa muran badan ka dhalisay social media waxaan aad ugu xumahay dadka Soomaaliyeed qaar kamid ah oo heestan dislike saaray waxay noqotay heestii ugu dislike ka badneed ee la soo qaada ama heesa Soomaaliyeed ama janaal Soomaaliya la soo geliyo waxayna gaartay dhowr boqol oo dislike ah ama aan laga helin halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo aalab u taagan inuu idin soo gudbiyo barnaamijyo xiiso iyo wararkii ugu dambeysay ee la hadalhayay ama la dhexmaray dadka fadlan subscribe saaro gambalekana furo si ay kugu soo dhacaan waxyaalaha aan soo gelin markasta waad ku mahadsantihiin daawashadiina